in xiniyaal laga garaaco ragii dumarkiina beerka iyo naasaa laga garaaco waa waxaan soo marin taariikh xanuunka aan ku aragnay inanka iyo dhibaatada gaadhay waxa ka sii daran in kii dilay haddana uu jeelka ku hayay inta xiniintu dhimanaysay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah salaan qiimo badan kadib waxaan maanta soo booqanay halkaan hor taaganay dhakhtarkii uu yaalay inankii xiniinta laga saaray nabarkii ka soo gaadhay garaacii ay boolisku garaacayeen ku soo gaadhay runtii aad iyo aad u naxdin badan weeye xanuun badan in marka hore qofka la garaaco la jir dilaa oo sidaasoo kale loo garaaco axmaqnimada leh waxa ka sii daran in kii dilay haddana uu jeelka ku hayay inta xiniintu dhimanaysay waxa sidaa la mid ah awil galeerisna aanu maalin dhaweyd soo booqanay oo isagana inta isha ay ka galeen waxa weeye qiiqii iyo xabadii lagu riday iyo faliidhawa ka gaadhay kadibna lagu hayay ugu yaraan 3 habeen lagu hayay stationka lagu hayay oo ay ishii waxyeello gaadhay oo hadda u baahan tahay in ishii dib loo qalo lagana yaabo sida uu noo sheegay dhakhtarkii markii la geeyay yahdeen waa in si dhakhsaar loo geeyo dhakhtar professional oo indhaha la geeyo laga yaabo haddii dhakhtarka professional la geyn lahaa in saacad gudaheed lagu badbaadin lahaa in dhibi gaadho ninkana lagu badbaadin lahaa xiniyihiisu bad qabaan ayaan darro aad u weyn weeye in xiniyaal laga garaaco ragii dumarkiina beerka iyo naasaa laga garaaco waa waxaan soo marin taariikh oo aad u fool xun oo arkayseen inantii la garaacayay waxaan runtiina taabatay oo dib noo xasuustay xanuunka aan ku aragnay inanka iyo dhibaatada gaadhay uu la jiifo waxa marka saddexaad ka sii daran in booliskii dhibtaa geystay dafiro oo qoraal soo saaro yahdo nabaruu qabay wax noocaas haddii xataa dhibtu dhacday in dhibtii la dafiro ninkan isagoo caafimaadkiisa qabuu yimi waa la garanayaa dhib baa ka soo gaadhay halkaas ka soo gaadhay dhibtii noocaas soo gaadhay waxay ahayd in marka hore aan dhibta loo geysan marka labaad haday dhibi gaadhay in lala tacaalo waqtigu dhaqsaa badnaa marka saddexaad in laga apologize gareeyo ninka dafiraya waxa uga sahlanayd inuu ka apologize gareeyo khalad baa dhacay waxa weeye ilaahay baan qaldamin dhibtaas gaadhay intaas ay ahayd waananu waxa weeye wixii dhiba gaadhay waanu ka xunna simple intaas ku filayd in la yiraahdo ila dhibta dhacday intii nooca ahayd ee la isweydiin lahaa ee laga yaabay in damiirkiisa bogsiin lahayd lama oran ee waliba dafiraad baa loogu sii daraa marka arintaas runtii aan aad iyo aad uga digaynaa waxaanu leenahay ciidamada booliska iyo ciidamada qaranka dadkii ay u dhaarateen ee xabadda isaga dhigayseen ee u dagaalamayseen ee ilaalinayseen hadaa laysaan oo dhibta noocaas timaado sharci baa ku xadgudubteen diintii baa ku xadgudubteen nidaamkii dawladda ku xadgudubteen iyay dhicin mar dambe annagu waxaanu mar walba ku celinaynaa oo leenahay dadka haday tahay taageerayaasha haday tahay muwaadiniinta mar walba waxaanu leenahay nabadgelyada ilaaliya dawladnimada ilaaliya dib ha geysanina mudaharaadkan aanu ku ballan qaadnay markii horena wuxuu ahaa mid silmi ah haddaanu berri ku baaqnana mid silmi aanu ku ballan qaadi doonaa mid aan dalka dib u geysan ku baaqi doonaa mid aanu barro dadku inay nidaamka dawliga u soo bixi karaan oo ay u soo bandhigi karaan dareenkooda iyagoo aan dib geysan ayaanu mar walba anagu taaganahay wixii dib ka yimaada cidii geysataa qabta waanaanu ka xunnahay waxaananu leenahay mar dambe ay dhicin aad baa mahadsan